يب هودن توش آذن كاغم هاد عنا وقتي هذا قالي الحمد لله قدام بيوم وكسوهله برامج كمان توك شو waxaa igu martiya hodan oo inta badan ka shaqeysa arrimaha bulshada una sugan haatan wadankan Sweden marka hore hodan aan kugu soo dhaweeyo ku soo dhaw horta marka hore barnaamijka aad baad maadsantahay walaalo waan dhawahay barnaamijka inta badan waxaan ku soo qabanaa ama kaga hadalnaa qofka waxyaabaha uu soo joogay ha ahaato dhanka waxyaabaha ka soo shaqeeyo kaleete wixii bulshada markaas uu ku soo kordhiyo kaleete sida gaarka waxa aad uga shaqeynaysa mudooyinka ugu dambeeyay arrimaha bulshada dumarka caruurta oo inta badan ahayn baahida markaas ka taaganba wadamadan hadda oo banaanka Soomaaliya ka baxsan maxaa kugu yaab badnaa maxaa u soo joogtay su'aashu way weyn too ogaa laakiin waxa u soo joogtaa rabnaa wallahi haddii aan soo koobo waxyaabihii aan usoo joogay ama indhahayga ku arkay waxaa ka mid ahaa aabo socialka ku dhahay gabadhan way xanuunsanaysaa si ciyaalka looga qaato oo xaaska la guursaday loogu geeyo fostercare family u noqoto hooyadaasina muxuu inta berigaawan u turjumayay waxay igu tiri wadanka waan ku cusubahay rafaad yasel iminkanu adkeysan waayey iminkana socialkiiba ku yidhi way xanuunsanaysaa adu gabadhii markii la baaray been bay noqotay sheekadii family problem iyo wixii way fahmeen Swedishkiina qisadii hooyo waxaan soo joogay kala oo yada tiri socialka yadna ciyaalkayga ha loo geeyo dad Swedish ah oo ka doortay dad muslim ah inaan ugu Soomaali ah maxaa waxay tiri hadhowbay soo raadsan doonaan hadhowbay soo xaqiiqada laga kaxeeyay يعني waxyaabo aan caadi ahayn baa wadankan ka socda oo diyaabaysid dadkeen waxa sameynayaan ma yorta been ma waxyaabo aad kaaga yaabinay jirto muddo badan ah ku nooleed wadankan ay gaaraan hadda caasimada ku nooshay arrimaha bulshada xooggan waa sarta baahidina ma dhameystirno dadkii aad ugu baahan yihiin maalin walba ay raboonayaan qof si caawinay hadda maxaa sameeyay anigu waxaan kugu ogaa hadda waxyaabo badan aan sameeynayay waxa ugu muhiimsan oo hadda aad sameysay bulshada waxa hadda ugu muhiimsan oo sameeyo waxa ka mid ah koorasan bixino ani iyo laba gabdhood oo kale oo kooras loogu talagalay waalidiinta maxaa la dhahaa iyo xiriirka ilmaha iyo waalidka ka dhaxeeya kooraskaasoo 10 jeer ah oo caawaba xataa suunkan ka bixin doono sidoo waalid baanu siinaa dhowr wiiguna socon doonaa oo wuxuu ku saabsan yahay buug waxa jira nafsiish lagu qoray oo la dhaho femgånger neershale oo nin Swedish oo psychology oo qoray buugaas ku saleysan yahay yani ilmaha maxaa ka hortag la sameyn karaa ilmaha rishbada soo wada maxaa lagu gartaa ilmuhu ma ku qaylo badan yahay dib badan yahay si loo tarbiyadeeyaa tarbiyada wadankan iyo teeni maxay ku kala duwan yihiin يعني بوق laga sameeyay family check lagu sameeyay weey marka buuga waxaan ka soo qaadanay baaritaankii macluumaadkii maxaa la dhahaa professoradu sameeyeen ilmaha bilmetel waqti la geliyo la ciyaarsiyo ama maalintii 15 minutes la siiyo lala fariisto laga neefiyo dareenkiisa laga dhageysto ama la tixgeliyo ilmaha si ka miskax badan uu og yahay hadhow dib haday ku timaado suudibta u xalin lahaa oo dadka ula jaan qaadi lahaa ama dadku wax la qaybsan lahaa markii loo fiiriyo bulshada aan ka imaano kale tamaan horta bulsho inta badan u diyaarsan wacyiga markii loo fiiriyo si dadka idin kaga dhageystaan waxyaabaha dhaysiin maadaama dhaysiin waxa soo dhanaan sameeynayna intaas wax u qabanay baahidan iyo taageenta loo jeedo bulshada inay u diyaarsan markaa fiirisi dhaqan ahaan iyo qaab ahaanba والله أنا أتكلم والله إن كفار في بلابي والدين بدن بيستدرين دونتا أو محوي توي والدين كلها يكلف حال قال أن أبي وحي حقي حقوق ليه يقال مسكحدو في كلام كان يشوفان شركوه لكن مسكحدو وطنكي يشوفته oo muxuu haytay yaqaan inkiraad ku noolba oo maxay qiranaynin oo moodaya hadii wax loo sheego ama reality life nolosha runta laga sheego ama waxa jira la sheego qarsanaya oo oranay may waa perfect oo la ogyahay haddana ilmeenu dib ku hayo ay ama hooyadii ama aabihii ay la rafaadayaan ay la silcayaan marka wallahi wax lagu farxo waxaan ka bilownay imika degmada tanista waalidiinta tanistaan u bilownay
Rinkeby baa lagu xigsiin doonaa oo magaalada Stockholm ka mid ah haddana Kista saas uu socon doonaa marka baahidu aad bay u badan tahay marka xoogaa waan soo yara ilbaxaynaa waxoogaa waalidiintu way qiranayaan oo way tabaanay la caawiyo marka waqti bay u baahan tahay laakiin aan laga daalin oo qofka kale wuxuu ku dhaamo uu ka caawiyo weeyi mana sahlan oo maalmo waxa maqlaysaa ciyaal Soomaaliya dhalinyaro meelahaas lagu dilay ama waxyaabo gaangistii ku jireen family qaarkood laga qaatay ciyaal ma sheekadana maalmo walba way taagan tahay dadkeena waxa u malaysay dadka qaarkood hadii ilaa 2 sano 3 sano wadanka degiin 20 sano ka badan degiin qaarkood see u dhageystaan wacyigelin ayaan waxa weey dadka ciyaaladan laga qaadanaya dadka wadanka ku cusub ma majority waa dadka ku gaaray wadanka mentality-googu ama wadankii ay maskaxdooda ku maqantay laakiin jidkoogu halkan joogo waxaan nagu arag annagu wadanka 30 sano degan 40 sano degan ilmo wadankan ku dhashay oo madaxweyne noqon kara wasiir noqon kara ayaa la odhanaya waa meel la gaari meyside waxba hayswaalin sudnima wadankan ka buuxday aduu haddaad ku timiday 60 jir ama 50 jir ama 30 jir ilmahan opportunity badan buu leeyahay chance badan buu leeyahay waa inaad tiraahdaa waad gaari kartaa madaxweynaad noqon kartaa marka ciyaalkii maskaxiyan ninkii laga dilay iyo qaar muxuu intay daroogadaasi ay baabiisay baaritaanadii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay dhalinyarada waxadaysa ama wax dilaysa ama waalidkooda laga qaadanayo heshkadeedkood ama isfahan la'aan dartood waxa la ogaaday 70% oo jeekinkii ugu dambeeyay caafimaadka la mariyay saddex way u kala saareen xanuunada dhimirka iyo ciyaalka ku badan ama ADHD bay qabaan bay yiraahdeen oo diagnosada aynu inagu fariidka u naqaanay qalqaaliga ilmo markuu concentration ku dhibayo una focuska saari kareeyay marka checking wuxuu tusayaa yani ama guud wuxuu ka soo baxay dib iyo mushkilad hooyo aaba maanta dhan duriyamaya oo is caayaya oo isdilaya ama muxuu haytay ilmahaas stress buu qabaayo muxuu haytay ama ADHD buu qabaa ayaa baaritaanka lagu soo koobay ciyaalkaasi la qaatay degdeg loo fiiriyay waxaan u soo joogo waxyaabo badan u soo jooga kamid aheed in xataa familka Soomaaliga markii la dhaho ciyaalkan waxa lagu sameeynaa caafimaad ahaan loo baarayo inay ka xanaaqaan cunugeena ma waalano saasa dareemaysa bulshada qaabkii ugu diyaarsaneen oo imika ugu dambeeyay social science meelahan social service-ka waxa soo badanaya ciyaalka Soomaalida waxa baahida gaarka qabta awalkooda lama qaadin jirin laakiin 5 bilood 4 bilood ugu dambeysay waxaan arkayaa ilmaha baahida gaarka qaba sida autism-ka ama ADHD-ga qaba in loo raadinayo family ama foster care family loo raadinayo markii baaritaan lagu sameeyay iskuulkii la arkay ilmihii casharkii ku adag tahay extra uu baahi caawitaan baahi gaar u qabo waalidkiina ay leeyihiin waxa waxba kama jirta kibir baahay ama muxuu hayto ma soo jeedeen wax barto social markaa waxay oranayaan sidaa miyaha oo dhakhtarkan cadeeyay iyo jeejinka mariyay waxba kama jiraan miyaha mas'uuliyadiisa ma qaadi kartid ilmahan kala daaba taagan tahayba ilmahan silca iyo rafaadkan waxba fahmin iskuulkii ku adkaaday macallimiinta dhaqaatiirta cadeeyeen bes meel kale loo raadinaya marka kuwaas way ku imika soo socda ee next la qaadi doona ama muxuu family loo raadin doona runtii laakiin markii loo fiiriyo hoodan dhaqan ahaantii laftirkeeda isma yeelay ilbaxnimada inta ka jirto meeshii dadkii ka imaadeen meeshan systemka ka jiro waxa la aaminsan science-ka iyo wixii markaas caafimaadkooda wixii markaas dadkii ka dhadhacsiin karaan dadkiina ummad diyaarsan markii la dhahay macna calashan bulshadii ma laha bulshada qayb ka wax ka maqasho hadda saan oo kale marka uu istaagtiin oo kale tan in la dhaho maxaa la idinka ma wax walba og idinka ma ka saana ay baahidin ay sii jiraysa arkaysiin ma qansi oo looga dhacin karo maskaxdaas wallahi way adag tahay oo taa waxa keenaysa dad waxanay madax adag kaliya wax ku maqalnayn inagu qof baaranaya kaliya ay xanuun soo lay hebel kaliya laga qabtay tusaale ahaan ku kala oranaya wallahi bariana maalkana leeyahay haye mala isku cudur baynu nahay kaliya leeno inagu waxa laga yaabaa case in family ku dhacay ciyaalka qalad lagaga qaatay ama isfahan la'aan ama ilmayadoo dheelito jiri been ka sheegay maalin dambe hadii family-ka laga qaato waxa la wadnaa waa gaalo waa been ciyaalkeega u soo dhigteen marka systemkan wax way ka qaldan yihiin waalidkan wax way ka qaldan yihiin
والبنا أنا وحن آمن سنة وضن كان دان قلبي يد أفضل كل هذا عيال كبرنا العيال كان عيال قاعد كنت تصير لين أنا إنه أفضل مسكح هذا وحول بإيس بين قنيصة لكن ده تلاقي بالكون لبنا كان كوهي سنة يا لبنا أفريقيا كوهي سنة يا أو بارابول كوساني يونيفرسال وحي هالجيسة كدعية الصومالية كدعية هتكون رسالة وحي وضن كان دقيقة هاي كدعية أنا بحبك أبين وعيان ده هوي أنا كوالله أنا وطن كان سرقة هي أنا وطن كان إحكالنا إنه جديدنا هيسنا دقن كنا هيسنا عيال كنا حقين لحقوق لنا أصول عنا والد طبعا بعرف يصير كنا المية الكبر اللي يوانكو أشكتين يا وايو حين أجي والد كنا نفعل سنين هذا ما هلا بقاطه وحلا يا بعيوت أنا أقرشوا يدي أما أبي وكرش أنا أخذ من صغر يوم كذا bulshooyin qowmiyada badan nala degan wadankan carab oo afrikaan wadamo badan nala degan markii loo fiiriyo xaalad yar markii dhacdana dadka misaalka lagu soo qaato tusaale ahaan anaka waa bilmatal hada soo qaato xaaladii ugu dambeysay oo corona markuu jiray oo kale Stockholm waxaa waa dad iyo isla wada degan waa dad iyo aan isdaryeelin degmo waxa xasuusta iskala istoonamiyad ma qaan la dhahay dadkaas meydkooda xataa meydka may dhaqaan may cunaan wax يعني فكرة قلدن أمر بلغا بحنا شغل أنا جرت حلول أو أيك أو بدن أو كي وعلى علم بدني اللي سومالي أيك يا سنة بالشدين وحركة سا بحول بول ودفنا قفوا على المجتمع كدوريا إنه هرك كعي كارو بالشدي لك أنا بالشدي معها بالشو ربطوا حيابا سنين وحلقة بتوتو ولا روح اللي قفوا البمشوا يبقى عيال بقلا أنا كهير استبيع بنا أنا كاستعمل إن كل حاجة يا بقى الصومالي إنه هم تكهدوا ومن صفر يستقبلوا جوارس الصحة وارتدى السمية واد نعيبيسين واد مال والدولي بكأشهاتي قفقة وحاجة يا بعينة تبود يعني شقديسي حتى وحيود لمان لكن من عداني ما قف عداني هتوح كشيء ولا كمان يعمل لك طبقات هذه ما تكذبت أقول وحوي تضوحني أنا سأفكي كريم تضوحني قرن الآن هيسو إنه الصومالي أسمه إمك كردي وكله وطبعاً لا أقول سنين لكن ما أنت المهدي لك قاطو كردية كوا سياسة وبشرة محوم يتوي كوا تخاطير تودا كوا محوم يتوي إمامة كل إسكوميلة الشرع أين وضحين وطن كردي إلى قول كردي سيريانو وضحين وطن ilmihi saasi ku soo ceshanayaan ama dibtu meeshii halkaas ku tagayaan laakiin annaga waxaan ugu yar maxaa la dhahaa voluntary waxa shaqada waxaan jecelnahay wax hadaan sameynayna lacag ku helno magac ku helno laakiin qalbigayna naga ahayn hadana diin baan haysanaa diin baan sheeganaynaa dad waxaan islaam Soomaalidu 100% لكن هذا الدومكي إننا مين والبيننا كشونال والبيننا عايا وهو حياتي وحلينا كشيء حباك كذا هم تدي ليش كشيء جيو أما صومالي وبقوا هم أما صوم يسويش ما أنا قبيلة ذا كلام هاي واحد يسكت يبني ما نقانو بوكتان كنا والله ما أقانو أفضل فيانينا أو يسلوي أو إن إسبنسون سمودي وبقوا همية وحلقة يابا Soomaali qof halkaas lagu arkaya wax qalad sameeyay isla markaa shacabka dalku fanay qofka Soomaaliga ismo dad dhanbaad matisha family dan oo Soomaali la yiraahdo matisha ma hadalkaad bilowgiis xataa aan ku xasuustaa way jiraan oo Soomaalida maana fiir wadamada kala adduunka qoomiyadaha kale markii wadan kala tagaan isla markii wadankaas inay galaan oo wax ka qabsadaan ama dukaamaha ka furtaan ama ganacsiyaha ka sameystaan wax way ka sameeyaan لكن أنا وحابة جناحي حتى وحكومة جناحي الصومالي بس وحلوة قدي كرو وحاربة أرنت كده واجس بالله وهذا عيالك والدين الصومالي أو مسميان عيالك ده مدي رجليان وكرت مدهاين عنقان إلى المعلم محل قفك استوديو فاجليدر أو حوض سمايا وحودا أو هذه اللي بدرس مادة في عنته مادة سجل كرت مركز هذا كبحث لكن والدك كم ورا هاي وحيو لأن هذه عنق يسنقون لها بايلود حتى هذا وحده وساكنه واجنس بالله وروح متراته والمالس كفديس وحي وحمتراه هذا لفترك هذا كالني كقادنا ميستر أنا والله أدين في وجود لقطة خير يقول أنا ما لين عم ما عشان هي سكول كهسبي لا ده هسبي سكول فيها لا يستقر كاملة وقول كي بس ديتن سومالي وأبدا سكول قاسم محو كقرة ما كده بين كوي كسارين حالتها إن إنترنت لكن وانا يقول الكل جورنالك وحيدهن عيال كن هم وكلا معاوية
dadkani wadamaday ka soo jeedaan baa abay ilaaheen ciyaalka inaan lala fadhiisan homeworka laga caawin aan dareenkiisa la qadarin waxay aaminsan yihiin ilmihii hadduu guriga ka tago uu iskuulkii tago isagoo sayfa gurigii kusoo noqda inaf intaasi ku faraxsan yihiin marka waxaanu keliyoon idinka baryanaa waalidiinta yaadba degan weliba iskuulka husba ay dhaheen ninka heegtuurka heeg mastarka dhan baa yidhi wax kale kama raadinayno waalidkan waxaan raadinaynaa wada shaqayno inayna soo wacaanayna dhibaan oo ilahaan ilmahaygii maanta xiisadii isboortiga ma tegey maanta xiisaduu gooye casharadii halkay marayaan waxaana ma soo weydiiyaan ba ilaahay cid ka hadashay ma jirto sheekada hadduu ninkaasi saa u caayi lahaa qof soomaaliya ahaan laha aakhira loo dhaadhicin lahaa rabuud inta laga diro ayaa loo odhan lahaa ninkaas soomaaliga baa saa naga sheegay been maaha oo waxyaabaha noogu wacan inta badanna way jirtaay oo xataa aniga waa dhaliila systemka Sweden oo kale mararka qaarkood waxbarashada markii loo fiiriyo waalidiin badan oo active ah la heli karaa inkastoo ay badneen waalidiin badan oo ciyaalkooda ka warhayn karo maxaa marka la haboon isleedahay qofka marka ciyaal laga qaato maadaama aad uga soo shaqeysay waalidka ciyaalka laga qaato maxaa uu furay kelmadda ugu horeysoon u sheegaya inta Soomaali meeshan iga daawanaysa waxa weeye ciyaalka lagu baa lagu qaataa horta wadanka waxa weeye ama waa lagu dacweyn ama adun baa dacweyn marka ugu horeysa waxa weeye ciyaalkan waxa LV lagu qaato sharcigan qasabka ah toban qasabka lagu qaato waxa keena marka ayna wada shaqeyn jirin xagga waalidka tusaale ahaan maxaan ka wada cali baa waxa la yiri iskuulka maanta macalimidiisa tira cali wuu wadwadsan yahay wuxuu la iskuulka waa la igu dilaa sidan la igu sameeyaa sidan gurigii kuma noqon karo way ku qasban yihiin inuu 24 hours inay meel geeyaan foster care family ama family hem geeyaan waalidkii ay wacaan inay kiinimaanta iskuulkan ka wadna halkaas aan geeyay maxay sameeyaan waalidiinta Soomaalida boqolkiiba 80 waxay raan may waxa saxba kama jiro waa beenaale taasi maxay cadaynaysaa waxa lagu hadhow lagu qabsanaya maxkamadda marka la taagan yahay ilmahaaga dhan baan aaminsanaynba wuxuu sheegay halkaad ka oran lahayd sida miyaha okay do it baaritaan sameeyo ujeedin bilaaba bal soo sameeya markaba dad kale u timaado difaaca gasho tira waxba kama jiraan waxa labadan ilmaha wuxuu sheegay waxba ka jira because ilmaha gilaan aaminsanaynba oo leeyahay been buu sheegaya ka badana lagu isticmaalo ciyaalkeena Soomaalidana waa ka qasabka كاسكول social science login ويرتي كاسي وامرك سامر بيتي جبت وضع شقين جبتو او step by step أدلي سيدا ميا اوكي باريتان بلابا what can I do إذنكم حد سمين كرتا أنو محان سمين كرا لكن بعضنا عيال كانوا حلقوا قاتا كقصبك that means والدين تي مقرنا يا وحبالا مقرنا يكيس كده عرفتم حين يغفي عيني كنت دي أجربي كله waxa lagu ornay in marka laga qaatay Allah wallahi dib ay haysato oo habeen anigu mirqaansan umba deena leeyigu soo koriyay dilmo oo aan dilbaaxo yar u dhiibay balkooda sii dira oo wadanka bal systemkiisa ay bara lawd bilood 6 bilood ama sanad balatan lacabeedeynaya waalidka ilmahoogiyo bisinka sidee ay hadhow loo soo celinaya weli ma arag family Soomaaliya in yar oo wax ka qirta oo ilaahan xumiyta qalad yar baa dhacay ee caawiya إيديا سيدا لوطة بيدية عيالك سيستم كوطن كإبارة بين شيء قال لكن بين بيجان تشيء المسألة بحكي سومالي يقولين بين بشيء وحاجة تحت سويدش كان لقى قاطع سويدش كلفتر كولا لقى قاطع وأنا لو سعليا وحيقول في ولا الحق وحيقول لي وفي تاني أنا ومن الطانسان أردلات يستقي تقدر جي ولا بتشيء علو بهالمرة وحلقيني يا مثلا ميلير أو كورس بالود بيريا وحلقيني يا محل دمشق ضغطة خمرو problem كهايستو أيه لقيني دوك لو كنت عيال كل ولو سعلي كم داليا لكن والد الصومالي وحلقوا كريم وي هذي لو يراها بشي هالمد بعد أركيسا وحتاجين بسيف كنترول لا كنترول الملي بشي هالمد بعد كسرها هايستان قاطان كاسم حي عضينيسا يعني محوجينا دانكيرا استقيل مهاجي marka laakiin haddaad tiraahdo iska samar beexta heela beega waan idin la shaqeynaya step by step maxaa trophy maxaa iga rabtaan oo daba socodtid halkana ballan lagaagay oo halkan garanteerad gacanta hadhow lagu soo gelinaya ilmaha laakiin jubda ugu horeysa haddaad boodidooda ficil keentay tira waxa waxba kama jiraan ilmuhu wuu kibray
ma 2 sano sanadbaa kibrayo beenkaa sheegaya markii la yidhi dareenkaaga bal qiyaas hooyadaa markay soo gashay say u eegeed ama aabbaha markuu soo galay aabbaa qaylinaya markaasuu hooyo sidan ku yimi exactly waxa ay sheegeen mid walba qol baa la kala gelinayaa 7-5 ciyaala waa la duubaya cajalada dhowr jeer baa la kala wadaysanayaa midda labaad badankeena waxaynaan ogeyn haddii waxaan urus an meelan la dhaho urus an meelan waxa kaa samayn kara jaarkaaga asxaabtaada qofka doonta kaa samayn kara socialka intuu waco odhan kara ilmaha yara xaafadaasi waa loo handadaa silicuu ku noolyahay rafaadku ku noolyahay adoon ogeyn baa utireen lagu bilaabaya baaritaan 4 bilood soconaya oo muxuu inta la soo wareysanayo jaarkaaga iskuulkii la wareysanayo marka cadaymo badan isku helaan dab oo waana runa inta badan markii qof wax laga qaadanayo wali ma arkin dad sheega laakiin inta badan waxa arkaysa 90% ah dhahna 99 cadaymo ayagoo lagu haysto wax cad oo loo jeedo ayagoo lagu haysto ciyaalka laga qaataa bulshadeenna dhankaas uma diyaarsanaanayso way mana sahlano in macnaha lagu soo qabto maxaa hal show iyo laba show waxaan ku weydiin lahaa oo kale dhanka dumarka maadaama anaga markii saxda loo hadlo guriga Soomaaliga uu ku dhisan yahay hooyada haddana hooyada intaas oo cadaadis saaran tahay mararka qaarkood kaligeedii dhowr ciyaal korinayso wallahi horta koorastan xataa way ku jirtaa oo sharciyada u yaala wadankan ciyaalka lagu qaato waanu sharaxnay oo waxaan sharaxayba wiigii horaan anu kooraska bixinayay bilmatalan waxaan ku soo qaatay tusaale ahaan hooyadun ba meel walba taagan meel walba iyadu basilxaysa waa anu waxaan u bixiyay agoomina abahood nooliyay nimanka kaliya qaladkoogana ma aha runtii baaritaan dheer baan sameeyay awalka hore nimankeena inay wax ka qaldan yihiin baan moodayay laakiin waxaan ogaaday kullu cinda fidma in anaga tayba dhigto hooyadii baa doonaysa in iskuulkii goyso dhakhtarkii geyso cuntadii bahalaysa dharkii maydho wax walba ay diyaariso aabbayaasha wadankii waxay ku fiicnaayeen aabbuhu markuu saa u soo galo homeworkiini iyo keen cashirkiinigu odhan jiray at least wuxuunbuu ku eekaaba laakiin kuweena halkani cafeteria wada hor fadhiyaan taasina iyaga qaladkooga maaha waa annaga dumaraan niri meel walba annaga prefect ka ahaanayna ciyaalkii iskuulkii anaa tagaaya hooyo tusaale ahaan waxaan xasuustaa maalintii dheerkoodaska markaan bixinayay tiri waxaan ku dhahay maxaa keenay inagoo isqabna oo xalaal isku qabna inaynu nimankeeni banaanka ka dhigno niraahno waar waxbaha noo caawina naga tagoon handikaaba ka dhigno waad u dhib yaraynaysaa waxay tiri bilmatalan aniga ninkayga bay tiri waxaan u diidaa inuu wax iga caawiyo ama iskuulka u tago bay tiri iima sheegaya bay tiri message-ka macallimadii bay tiri ilmahaygu wuxuu ku xunyay iyo halku marayo igama dherginayo ilaahay baan kugu dhaashay ka sheekay oo ilmaha yaa dhalay baan ku dhamuuna ifka kula keenin ciyaalka haayo wiila keeno bay tiri wallahi hooyo waxay ahayd maasha Allah active oo aqli badan waxay tiri wuu ila keenay laakiin waxaan ka doorbiday bay tiri iskuulka iyo dhakhtarkaba inaanu ilmahayga kaxeeyo maalmaha ka mid aan xanuustay bay tiri noloshiisa ciyaalkaygu ma yarag bay tiri isagoo cunto karinaya cuntada adduunku kariya markaas shooq qaadiya ciyaalkaygu bay tiri marka maaha ciladu nimanka keliya waa annaga u dib yaraynay annaga niri waana waxa maanta keentay ciyaalkayga inay soo qabada galaan laakiin ilaahay aqli buu ina siiyey nimanow ilaahay aqli buu ina siiyey hadday gabadhu ku tiraa waxba hayn qabanin oo saan u rabay baan guriga u masaxayna ma cuntada u karin ama ilmihii iskuulkii aanay iiga soo dherginayn ha ku dhagaysan ilmahan adaa hadhow aakhiro laga weydiinaya wax aad waxaan arkay bulshooyinkan kale la noolaan kale markaan soo qaadana hadda dalka Swedish oo kale xitaa hadiisan labada reer isla joogin waxa dhacday cunugaas in loo geey aabihiis ama hooyadiisa maalinta week oo toddobaadka markuu dhamaadkii yahay si uu u soo barto macnaha laga wadan wax kale ma ahane in cunuga uu raxmadi labada dhinac ka soo heli karo mas'uuliyadiin uu ka baran karo aabihi laftirkiisa oo la iskuma dhaafayo waxa arkaysa gabadhi shalay ayadoo dhashay bil gudaheeda 2 bil naas ayadoo la siin cunugii shaqo aadayso ninka duurba baabaladii soo qor ama iska dhaaf laakiin wada shaqeyn way jirtaa oo dadka inkastoo dadka naga ilbaxsi markii loo fiiri laakiin haddana anaga waxaa la rumogto waxyaaba qaarkood inay noo dhib dhaamaan waxaan ilbax kaliya walaalay inay tahay ee dadkani diinta nuxudkii intii ugu macaanid diinteenu bay kala baxeen diinteena waxaan oo dhan ku qoran tahay waa diinteeni oo la casriyeeyay oo dastuurka Yurubun laga dhigay waa muxuu haytay intii diinteenu inoo sheegtay inaynu saa u dhaqanno bay dadkani naga koobi gareeyeen oo iyagu ku dhaqmayaan
laakiin muxuu haytay waa wax laga xumaado hadduu calafkiinu kala dhammaaday ood kala tagteen ilmaha yar dartii waa lagu qasban yahay muxuu haytay waxaan anu aaminsanahay haddii aad ninkaagii kala tagteen ama xaaskaagii dee wiilkay kaa haysana raaxayso oo marba meesha doonta ka dhaco calafka la raadso adiguna gabadhay cilaan isa saaroo raaxayso mataaroosta doonto u carad laakiin waxa xanuunadii dhimidku noogu soo badanaya dumarka ugu soo batay waa waxa kiiskaas aad u maqla qodobkaas rabaan aad inaan uga hadalno inta badan hadda waxaa la sheegaa weliba waa la isku wada koobaa dadyooga ajaanibta la isku wada laakiin soomaalida marka loo fiiriyo aaday usoo badanayaan dadka xanuunkan maskaxiyanka qabo sababaha ugu wacan kulley wax badan usoo joogteen wallahi mad baan ka shaqayn jiray maraan nursing ku shaqayn jiray oo secretary-gaan ka shaqayn jiray ayaa waxa waan yaabayba runtii Rinkeby Stockholm dumarka dhan yacni Stockholm badankoodu dawooyin baa lagu qasbayay oo annaga Soomaali markay noo arkaan yacni ayaguna naxayeen ayaguna lahaayeen alam Soomaaliyad baatay yacni waxyaabahan waxaan uga tagayna waxay ahayd naxdinta darteed shaqadaas aanay wax walba iga lacag badnayn laakiin yacni qof walaalka oo og tahay dumarkii markaan wadaystay ama qornaalkooga aan fiiriyey wixii laga qoday dhakhtarka waxa ku wada qornaa ninkaygii baan lacag ururiyey lacagtii uu gabadheeda 15 kusoo guursaday sidaa darteed bay gabadhii isugu booqday kulligood boqolkiiba wallaahi cadiim boqolkiiba 60 kiiskooga qornaalka systemka waxa ku qornaa waxa u keenay muxuu hayto isku buuqa ciyaalkii keligeed noloshiiba oo ku noqotay ninkay aamintay waaba gabadha waxa laga yaabaa tanista vegan tan budagay 20 u wareegay buu xaas kale kala guuray waana muxuu haytay ciyaalka xataa qaybay ka qaadatay ciyaalkan la gudanayo haddii qofku uu diido weyna diidanayn badankooga dumarku haddii uu qofku diido dawadan maskaxiyanka u qaadanayo inay xataa dib hadhow ilmahaan lagu aamini karay inay dib uga keenayso marka waa muhiim in xiriir lala yeesho maandhoyda article caafimaadku soo saareen wasaaradda caafimaadku ajanabiga waxaanu keeni doonaa bay yidhaaheen inaanu ku qasbi doono inay caafimaadka marka laga helo caafimaad dafo ma yimaadaan bay yidhahan way cararaan inaanu ku qasbi doono in lasoo qabto oo daryeelka lagu qasbo bal heerkaan marayna ilaahay kugu daashay ka sheekee yaa og bal dhakhtarkaad gashay waxaad xanuun qabtay oo soo siiyey jaahinimada wax ka xun ma jiriyo kibirka aad iyo aad may weliba waxaa jirta midaan usoo joogay oo gabadh saasoo kale ciyaar looga qaato oo daawooyin la sii siin jiray Soomaali badan rabtay inay caawiso laakiin ugu dambeyntii way cadaatay oo waxyaabihii lagu haystay iyo wixii markaa fiirisid qofka inuu u diyaarsaneen inuu cunugiisa helo may waxaasoo dhan wax isku noqonaysaa package dhan u wada diiday bulshadan la noolna inaan wax la qaybsano waxaan rabaa community integration show barnaamij ah sameyseen oo hadafkiinan ugu weyn ah integrationkaas ka muuqata isdhexgalkaas inaa ku wacyigelisaan ka waran dadka si ugu soo falceliyeen wallahi runtii positive feedback badan baan ka helay waana waxay igu dhaliyay inaan sii ballaariyo sii wado filibkeeda ayay ugu horeeyay dhammaadkii 2018 baan malaha soo dhigay oo ka hadlayay autism-ka iyo ADHD-ga calaamadaha lagu garto iyo waxay xaq iyo xaquuq u leeyihiin iyo halka lala xiriiriyo waxa markaan arkay intaasoo kun oo qof inay sheergaraysay ama daawatay ama ay comment iga soo celiyeen walaalay noo soo badi maan ogeyn ciyaal waxaan haystaa autism qaba sawiraanta lagula hadla halka laga helo waxaan xaq u leeyahay maan ogeyn waa waxay igu dhaliyay inaan qof walba waxa yar uu aqaano oo ummadda kale la qaybsado adduunku wuxuu horumar ku gaaray dadkii Swedish ama European-kii naga fiican yihiin dibta ku dhacda dadka kale way la sheergareeyaan soo qofkan wax uga barto laakiin annaga qofka kuugu dhowow wax u sheegatid baa bidi kugu caayay marka diintan sheeganayno iyo salaadan tukanayno maxay ka micnatay markaas haddaan qofkii xanuun ku dhacay ama walaalka ay dhibaataysna aad leedahay heblaayi ciyaal handikaabay qabtaa gabadha 3 ciyaal xanuunsanaya leh gabadha 2 ciyaal xanuunsanaya leh diintan sheeganaynaa marka maxay tahay marka anuma aaminsani Soomaali haddaan nahay diinta kuma dhaqane wax dhaqan la yiraahdo aan aaminsanay 99% dhaqan baynu ku dhaqanaa diinta identity card baynu oo wali iska sitaa waliba dhaqan qurux badan ma dhaqanka ku diida in ciyaalka la noolaatay si qurux badan u ixtiraamto bulshada la noosha ina adduunka ka qabsada diinta diidaysa ma aqaan diin ma jirto waligeedna nabi calayhi salaam markii xilligiisa xataa jirtay hadba dadka la nool yahay si loola noolaa waa package-keedii leedahay waxaan rabaa
maxaa kuwa muuqanaya marka mustaqbalka maxaa u jeedaa dhalinyaradan Soomaalida gaar ahaan wadankan Sweden ku nool kula eg tahay inay wax badan ka keeni karaan ayagoo intaas culaysna waalidku sii haysto wallahi horta rajo lagama daalo oo lagama tago anu waxaan aaminsanay waa inuu haddii konton qof oo Soomaaliya isku mentality oo u soo jeeda in ummadooda wax u tarto oo wax ka caawiso horumar iyo Sweden ba meesha waan ka gaari karnaa waan la jaan qaadi karnaa wadankan deganahay laakiin hadduu qof walba yahay waxba igama saarno oo ani gurigaygu dhisay wax walba waa top meel ma gaari waayo ilmaha Soomaaliya maalin walba ismidiyeynaya ee istilaya kaasiba hooyiya aabba dhalay kaasiba walaalbo la dhashay meeqa hooya maanta secretary-ga lagu daweeyaa oo ciyaalkeedii laga dilay ama laga qaatay marka damiirkeena hadduu dhintay iyo muxuu intay diinteeni aynan si laynoogu talagalay inaan ku dhaqmaynin anu wallahi garan maayo laakiin waxaan aaminsanay inaynan ka daalin 10 qof 20 qof ha ahaatee aabayaasha cafeteria wada fadhiya kaafe wada cabaya 5 ciyaal 7 ciyaal guriga hooyadii la silcayso muxuu intay isbedel baan u baahanay isbedelkuna wuxuu ka bilaabmaa waa in meelun laga bilaabaa ما سهلا isbedel weyn loo baahan waliba magaalooyinka waaweyn oo kale waxaan aaminsanahay horta si aan xal u helno horta markaad xanuunku hayo xanuunka markaad qiratid dawadiisa la helaa bal horta bishii waxaan aaminsanahay hal mar hadii meelaha Soomaalidu ku kulmaan community ay ku kulmaan hadii bishiiba hal mar odayaashan markay dumarku kala tagayaan nimanku horbooda iyo gudiyahooda ugu tagay maxaa loo waayay odayaashan waxalin jira awal bereed markay kala tagayaan dhixgalaya maxaa loo waayay inay fahmin walba u tagaan ay rahaan adeer waan ognahay laba adi suuqa ka galeen adna xabadi ka galeen adna saddex ka galeen maxaa xal Soomaali baynu nahay ayayna waxba qarqarsan wax walba miiskan soo dul saarno reerka ay ma hebel dhibtaas haysata laba ciyaala suuqa inay ku jiraan in yaru jira kuwaas way ka galeen maxaa diiday markay taasi dhacdo weynadan kun qof isku horboodayna anu waxa show off baan arkaa marka horta dawada xalka waa la helayaa laakiin runta lagu dhaqmo run la isku sheego taas aan aaminsanahay waana practically waa sida waa dhakhtarka ma daweyn karo qofka haduusan ogaanin bukaan cudurka uu qabo haduusan ogaan horta dhakhtarka wax ma daweyn karo run waay wali magaalooyinkaas waaweynka waayba inta badan hadda inta isku bahaystaan hadda maalin waxaan ka sharciyada xataa ku jira in loo diidi doono xataa dadka jaanibta inay u guuraan magaalooyin kale u badan yihiin bilmatal qof aan markaa Soomaaliya oo kale magaalada u guura hadii tahay magaalo qayb xaafada u guura kale Soomaaliya u badan tahay si la dhahay you of course because of integration kiba wala la arkaya qof waxaad arkaysaa 15 sano degan oo hinka bisiniisana degan oo cunayo cabayo reer 10 qof ay guri ku wada degan yihiin marka dadka cusub ee wadanka yimid waan ku raacsanay sanadka ugu horeeyay 6 bilood inay ehelkooga caawiyaan ay raadiyaan imka Soomaalida tuulooyinka degan way ka activesan yihiin luqada way kaga fiican yihiin Soomaalida Stockholm degan 10 sano degan waxaad arkaysaa qof Soomaali oo tuulo degan 3 years degan ama 4 years oo Swedish fluent ku hadla ma helaysid Stockholm way ku yartay because meeshu tagaba Soomaali baa taagan laakiin halka uu ku qasban yahay Swedishki ajnabiga kala ku badan marka haddaan wadamadeedii ka nimidna waan ku qasbanay inagu diinteeni haysana dhaqankeeni haysana inaan wadanka la jaan qaadno ummadda kale waxa iis uga dhigay waxa weeyi waa wadanka ay dhexgaleen iyagoo diintoodii haysta muxuu dhaqankoodii haysta ay haddana fahansan yihiin laakiin ka Soomaaliga waa hebel muxuu yiri heblaaya maxay soo qortayo madaxweynihii Soomaaliya muxuu yiri laakiin waxa degmadiisa ka dhacay Sweden iyo ciyaalkiisa iskuulka abadan wartamahayo taas ana u miqraati ahay maalin oo aan raadinaynay Soomaalidu waxaan weydiinay waliga ma codays iyo ma codays qof yiri 20 sano wadanka ku nool waligeena ma arkin waxa ka hadlays may waa kiiskeedii leedahay intaana soo xirin maxaa marka bulshada gaar ahaan mana sahlana in meelo badan wax laga qaban karo maxaa isdhigi kartaa noqdooyinka meelahaas hadii la fiiriyo muhiim ahaan leed wax laga qaban karaa wallahi waxaan aaminsanahay horta ciyaalkeenu waxay u baahan yihiin waqti la geliyo aabayaasha Soomaalida cafeteria cafe iyo television ay hor fadhiyaan inay ilmaha yar la fadhiistaan hooyooyinkay noqotay hooyooyinku waa inay u daayaan inay nimankoogan wax la qaybsadaan ilmaha yaga ifka keenay adi si walow ninkani kuugu xun yahay
ilmihiisa darti ku qadarin de ilmahan xumaanha ka buuxinin aabahaa adigu ku fiican yahay ifku ku keenay laakiin labadeedan isfahmaynin waxaan aaminsanahay haddii faamil wal oo Soomaaliya wiigii hal mar ay wada fadhiistaan maanta maxay noo hirgalay maanta hebel baa wiiga dambe dhakhtarka ku leh gabadhan kale dentist bay leedahay gabadhan kale school meeting bay leedahay adigu xageed tagaysaa ka qayb qaadanaysaa aniguna halkan aan ka qayb qaadanaya oo wixii la kala qaybsado oo dialogue la sameeyo oo noloshii la waad isku darsateen marka horeba haddii kale qof walba gurigiisa ay iska joogo maxaa la isku raadsanayaayo ilma la isaga dhaldhalaya haddaan mas-uuliyaddii la qaadaynin marka ciyaalkeenu dhulwaa baa helay markaan ka neefin weynay ummad kale ka neefisaa heshay ciyaalkana waa ciyaal qaarkood ayna kunka karoon ay xaq u leeyiin ee bombe darooga ayna helin ciyaal waxaa arkaysaa lagu dacweynayo gudisku nacnacu ka xaday tukaan waana dacwadahana waa loo seef garaynayaa meeqa jeer baan anigu ku arkay xaafadda Husbaan oo jooga ciyaalada Soomaaliya nacnac ka xaday tukaanka maxaa keenay waa ilmo aan aragba jimcaha ama sabtida laga yaabaa waa laba karoon wax loogu goyn karo marka inaan runta inaan ciyaalkeena waqti gelino intaan ummad kale u fiirsanayno inaan nagu isku fiirsano oo qof walba gurigiisa iyo ciyaalkiisa oo u fiirsadaa runtii fiican oo muxuu hayto ciyaalkaasi aan waqti gelino ciyaalku waqti bay u baahan yihiin ciyaal waxa la arki doonaa ilaaha anu muslim bameeyay anu waxaan ahay lesbian ayaan anu gay baan ahay way iman doontaa hadalka meel ku qora ciyaal waxa la arki doonaa sheekooyinka la soo bixi doona waciyaalan oo la oran muslimku waa sidan ee been lama sheego hooyo waxa dadka sanadka maxaad been u sheegaysaa iyada inta ku tiri bidi wallahi cafeteria ku geenaya ama aabo una dankeeska taas maxay cadaynaysaa adigu been baad sheegaysaa sayga calisaanin sayga calisaan marka ilmaha waa role model bi u baahan yahay role model fi tabayaan ciyaalkeenin hogaamiye waxay u baahan yihiin daacad oo la qosla war maaha inaan ciyaalka lacag ku gelino activities boqol activities oo bilaash wadanka ka jira Stockholm dad Google kala gala ama tuulooyinka meesha doonta ka degano familiyada aan economigoodu fiicneen loogu talagalay banaanka gooldankaas lagu ciyaarsiin karaa waqti in la geliyo ilmaha laga neefsiiyo maalinkooda san bixinayay baa waxaan ku dhahay yaa waalidkiinan afirtankiina qof halkan fadhiya yaa maalin walba ilmihiisa ku ila markuu sii baxay hooyo waan ku jecelahay nin baa intuu istaagay wiil oo aniga wala iguma soo korina wiil maxaan uga sheegay wuu ogii wiil ifkaana keenay automatic in jecel yahay it's not about that taasi maaha iyagoo waxay indhooga ku arkaan iyo kalkacalka iyo waxay arkayaan oo bay ku dhaqmaan ciyaalka aggressive-ka ee dilmada badan ee rashbada badan waa ciyaal aabihii iyo hooyadii guriga rashbada ka jirtay arkayaan marka ummadda kalena saas oo la dhaqmaya hodan toosh aad iyo aad aan kaaga mahadcelinahay waqtigaada qaaliga fikradahaas quruxda badan nala qaybsatay iyo waxa u soo joogtay waqtigaada qaaliga wax naga siisan aadan kaaga mahadcelinaa waana rajeynaa dadyo badan inay ka heli doonaan talooyinkaasiinis aadan kaaga mahadcelinaa barnaamijka intaan soo xirin waa sharaf ii tahay inaan mar kalena aan kula hadli doono insha Allah hadduu ilaahdo insha Allah aad walaal mahadsantahay aad baan kaaga mahadcelinayaa aad khayr baan idin rajeynayaa dhamaantiin maalin wanaagsan habeen wanaagsan